kadib bilo jahawareer ah oo la galay Trump ayaa iminka u muuqda mid soo dabcaya siyaasad cusubna la soo banbaxaya. Booqashadiisii shalay uu ku tagay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ahayd mid la wada sugayay, waana tii ugu horeysay uu Trump ku tago meel ka baxsan Mareykanka. Booqashada Trump ee Sacuudiga oo aad loo hadal hayo ayuu ku mari doonaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar, iyadoo la filayo inuu la geli doono heshiisyo waaweyn oo dhinacyo badan taabanaya. waxyaabaha ugu badan ee uu Trump diiradda ku saarayo safarkiisa Riyadh ayaa ah maalgashi hor leh oo loo sameeyo dhaqaalaha Mareykanka, waxaana safarkan ku wehelinaya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio iyo xubno kale oo muhiim ah. Ilaa iyo hadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman waxay ku dhawaaqeen heshiisyo istiraatiiji ah oo dhan $600 milyan oo diiradda saaraya iskaashi dhinacyada difaaca, sirdoonka macmalka, tamarta iyo hawada sare. Trump oo xalay khudbad ka jeediyay Riyadh ayaa carabka ku dhuftay in maamulkiisa uu qaadayo tallaabooyinkii ugu horreeyay ee lagu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Suuriya. Waxa kale uu Trump sheegay inuu ka qaadayo Suuriya dhammaan cunaqabateyntii horey uu u saaray Mareykanka waqtigii nidaamkii la riday ee Asad. Arrintan ayaa sababtay in si weyn xalay looga dabaaldego gudaha Suuriya, gaar ahaan caasimadda Dimashq iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, halkaas oo isugu soo baxeen shacab fara badan kuwa uu soo dhaweynaya hadalka Trump una arka mid waddo cusub u furaya Suuriya. Kahor intaanu u gudbin dalalka kale ee khaliijka, madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta kulan gaar ah la yeelan doono dhigiisa Suuriya Ahmed al-Shaara si Suuriya looga taageero xalinta culeysyada amniga iyo kuwa dhaqaale ee ku horgudban. Trump socdaalkiisa ayaa ah mid ku soo beegmay xilli uu heshiisyo hordhaca la galay Xuutiyiinta iyo Iiraan, isla markaana laga deerinay xiriirka maamulkiisa uu la leeyahay Israa'iil, waxaana xusid mudan inuu miiska saaran yahay aqoonsiga Falastiiniyiinta. Guuldaradii Mareykanka uu kala kulmay howlgalka ka dhanka ah Xuutiyiinta ayaa Trump ku qasabtay isbeddelkan uu muujinayo sida ay qabaan khubarada qaar, waxaana waqtigan uu indho kale ku fiirinaya xaaladda Bariga Dhexe. Sida la wada ogyahay, Mareykanka ayaa bilaabay howlgal uu ku sheegay inuu uga hortegayo xanibaadda ay kooxda Xuutiyiinta Yemen ku soo rogeen badda Cas iyo marinka ganacsiga ee Bab el-Mandeb. Howlgalka oo bilowday November 2023 ayaa la xiriiray go'aankii Xuutiyiinta ay ku dhawaaqeen, kaas oo ahaa inay beegsanayaan maraakiibta ganacsi ee ku socota dekedda Israa'iil. Mareykanka ayaa ku guuldareystay in howlgalkan uu ku qanciyo dalalka caalamka inay ku weheliyaan, waxaana si cad u diiday dalalka reer Yurub badankood, kuwa oo xitaa ka biyo diiday in howlgalkaasi lagu mataaneeyo howlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda. Mareykanka oo kali ku ah howlgalka ayaa wajahay culeysyo kala duwan iyo fadeexad, maadaama Xuutiyiinta ay suuqa ka saareen diyaaradii uu ku faani jiray Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn MQ-9 oo ka mid ahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loogu iibsiga badan yahay dunida. Xuutiyiinta ayaa diyaaradan ka soo riday ku dhawaad 20 xabo oo ka mid ah kuwa uu mid kasta uu joogo qiimo ahaan $33 milyan, taa oo ka dhigan khasaare ka badan $1 milyan inuu Mareykanku kala kulmay soo ridista diyaaradahan. Fadeexadan iyo cagajiidka dalalka reer Yurub waxay Mareykanka ku xambaartay inuu Xuutiyiinta la heshiiyo, waana mid ka mid ah go'aanadii ugu dabacsanaa ee uu Trump qaatay. waqtigan waxaa labada dhinac dhex maray heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Cumaan, iyadoo la xaqiijiyay in heshiiska uu ka yimid dhinaca Mareykanka, wuxuuna dhigayaa heshiiskan in labada dhinac ay joojiyaan weerarada, Mareykankuna aanan weerari doonin Yemen, halka Xuutiyiinta ay iyaguna weerari doonin maraakiibta ganacsiga Mareykanka. Mareykanka ayaa ka soo tegay badda Cas isagoo aan xaqiijin labadii ujeedo ee howlgalka ku dhawaad 2 sano socday laga lahaa. Hadda Xuutiyiinta waa kuwo awood u leh inay weeraraan gudaha Israa'iil iyagoo xiray dekedda Israa'iil. Tani ayaa noqonaysa markii ugu horeysay oo laga arkayo Mareykanka oo cadow uga tegay Israa'iil, taa oo gudaha Israa'iil ka dhalisay caro xooggan iyo dhaliil loo jeedinayo xukuumadda Washington. Dhabarjabka ka soo gaaray Trump Xuutiyiinta waxay soo dedejisay in Trump uu ka gaabsado Tel Aviv, xiriirkana u jaro Netanyahu sida ay hadal hayso warbaahinta caalamka. Oofinta dalabka dalalka khaliijka iyo rajada uu ka filayo ayaa marin cusub u iftiimisay Trump, waxaana markan yoolkiisa ugu ballaaran uu yahay sidii ugu dhawaaqi lahaa dowlad madax bannaan oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin, taa oo dharbaaxo kale ku ah Israa'iil. Kadib markii la arkay go'aamada ka soo horjeeda Israa'iil ee uu qaatay Trump, hadda weerar ka dhan ah Mareykanka ayaa ka soo yeeraya Israa'iil. Wasiir ka tirsan xukuumadda Netanyahu ayaa yidhi, anagu ma nihin xidigta 51 ee calanka Mareykanka, hadafyada dagaalka aan ka leenahayna isma bedelin, taa oo si cad u bidhaaminaysa in Tel Aviv ay ka niyad jabtay Trump. Xamaas oo u riyaaqday tallaabooyinka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay sii deynayso Eden Alexander oo ah nin haysta dhalashada Mareykanka isla markaana ka mid ah dadka ku xiran mariga Gaza tan iyo sanadkii 2023. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintan ka hadlay ayaa ku dhawaaqay in Alexander uu dhowaan dib ugu soo laaban doono dalkiisa, iyadoo dowladda Qatar iyo Masar ay si weyn u soo dhaweeyeen sii deyntiisa oo ay ku tilmaameen tallaabo loo qaaday dhinaca wadahadalka lagu doonayo xabad joojin dib uga hirgasha Gaza. Dhinaca kale, Trump ayaa muujiyay isku soo dhawaansho dhex mara isaga iyo hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah al-Khamenei, waxaana suurto gashay wadahadallo u qabsooma Washington iyo Tehran kuwa oo lagu gorfeynayo arrimaha nukliyeerka Iiraan. Wadahadallada nukliyeerka oo waqti badan la geliyay ayaa qaaday dhabo wacan kadib wareegii labaad ee wadaxaajoodyada dadban
waxaana kulamadooda ay noqdeen tallaabooyin horumar leh oo wax dhisaya. xakamaynta awoodda Iiraan ee dhismaha hubka nukliyeerka waxay muddo 10 sano ahayd ujeedo siyaasadeed oo weyn oo ay ku haminayaan Mareykanka iyo xulafadiisa, waxaana libintan ay bilaaw u ahayd isbeddelka uu muujinayo Trump. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa biyo qabow ku shubay dagaalka ganacsi ee uu la galay Shiinaha, kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib canshuurihii xad-dhaafka ahaa ee uu dal walba midka kale ku soo rogay. wuxuu isku dayay Trump inuu bog cusub furo, heshiisna laga gaaro xiisadda, waxaana dhinacyada ay toddobaadkan markii ugu horeysay ku kulmeen Geneva. iminka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyey in muddo 90 casho ah dib loo dhigo canshuurta wax soo saarka labada dal oo gaartay 250%, iyadoo hadda labada dal ay ka wada xaajoonayaan hababka ay heshiis uga gaari karaan khilaafkooda ganacsi oo saameyn ku yeeshay caalamka. heshiisyadan cusub waa kuwa muujinaya isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyadoo la siinayo mudnaan sare iskaashiga dhaqaale iyo tiknoolajiyadda ee gobolka Khaliijka. sidoo kale waxaa imaanaya su'aalo ku saabsan saameynta ay heshiisyadan ku yeelan karaan xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil, oo xilligan mugdi badan hareeyay, lana ogeyn halka uu ku biyo shuban doono.